kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaana daawanaysay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono doorashadii maanta ka dhacday Soomaaliland oo ah 13 bisha November ee sanadka 2017 doorashadan ayaa waxay ahmiyad weyn u lahayd beesha caalamka marka laga tago Soomaaliland gudaheeda taasoo ahayd markii ugu horeysay ee doorasho lagu qabto in la isticmaalo qalab lagu baadi sooco isha bu'deeda ama iriskanka loo yaqaano waxay kaloo ahayd doorashadii ugu horeysay Afrika ka dhacda ee dood madaxweynayaasha ama musharaxiinta xisbiyadu ay qabtaan waxaana caawa barnaamijkan inoogu martiya aqoon-yahan Maxamed Cali Bile oo ka tirsan xisbiga xaakimka ama xisbiga talada haya ee kulmiye oo imikana doorashada galay iyo Maxamed Cismaan Fadal Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo isna ka tirsan xisbiga wadani waxaanu jecelahay bal markaa marka ugu horeysa ku soo dhawaada labadiinuba Saab TV haddaan ku horeeyo Maxamed Cali Bile sidaynu ognahay maanta doorasho dhacday doorashadaasi dadku waxyaabaha ay muujiyeen waxa kamid ahayd si kasta siyaasadda ugu kala duwanaadaan inay meelo badan ka midaysan yihiin bal waxyaabaha aad soo qaadan karto doorashada maanta xagga ay ka midaysan yihiin shacbigu maxaa kamid ahaa maxaa kaaga baxay waad mahadsantahay runtii anigu saaka subaxii marran soo toosay marka ilaa dhowr iyo 10 goobood baan soo maray oo ay doorashadu ka socotay subaxii hore intagayba shacabku meel kasta diyaar ayuu ahaa meelo yaryar ba wax ka habsaamay laakiin sida guud ahaan waxa iga soo baxay meel kasta oo aan tagay weli ma arag dad isweydiinay adigu yaad codeynaysaa waxyaalo yaryar oo farsamo oo dee guud ahaan oo ay isweydiinayeen iyo safku u dheer yahay iyo waxyaalo mooyaane dadka marnaba meel kaliya kuma arag iyagoo isweydiinay qofna xisbiga uu codeynayo marka waxay soo baxdeen dhowr arrimood oo koowaad ay tahay dadku inay u heelan yihiin in doorasho la qabto oo ay diyaar u yihiin in codkooda dhiibtaan oo at least dimuqraadiyadda ku codeeyaan iyo talabaad oo ah inaan waxaan badan marka aynu ololaha wadno aynu sheegnay aad moodo dee in xisbiyadu ay dadku kala midab yihiin oo kala duwan yihiin marka codbixintu timaado dadku isku wada midun baa saf baa lagu wada jira iyadoon qofnaba si gaar loo lahayn kana xisbi hebel iyo kana xisbi hebel marka anu labada arrimood way iga soo muuqatay saaka intii aan goobiyaha marayay Dr. Maxamed Cismaan waxaad in badan joogtay doorashooyin ka dhacay Soomaaliland maxaad oran kartaa doorashadan maanta way kaga duwaneyd kuwii hore u dhacay waxaan oran karaa horta doorashooyinka dadka Somaliland dee wadal yar iska koraya dadku way koraan xoog bay u koraan doorasho aad uga xamaasad badan bay hortahay xoog bay uga xamaasad badneyd doorashooyinka kasta aynu soo mari jirnay 3 doorasho madaxweyne soo marno 3 way ka xamaasad badneyd sidaa ay tahay wax dhibahoo yimi ma jirin waxa ay dadku waxaad moodaysay inay aada ugu caddahay waxay doonayaan oo xamaasadaasu inay ina lahayd inay mawaaqiftoodu u caddahay oo hadday doonaan ha ku kala qaybsanaadeen oo afkaar ku kala qaybsanaadeen inaanay dad matalan dunida waxa lagu xisaabtamaa dad baa dhexdhexaadka ah iyo dad baa maartay dee decided ah iyo waxaad iska moodaysay inay waqtigan aynu ku jirno ay dadku ay u caddayd cid waliba waxay doonayso danta guudna la wada ilaalinayay dadka Somaliland nabadeedu dadka haya dawlad xoog laho ciidan laho police laho kan la deemaha hadad magaalooyinka waaweyn ka baxdo xalaya marka taana in aad iyo aad uga fakarayeen in kasto oo ay xamaasi ahaayeen haddana aan qardoofooyin iyo waxba jirin marka isku soo xoori waxay ahayd iyadoo kuwii hore ka xamaasad badan haddana inay ka doobir badan tahay oo aanay ka dhibaatay yartaan wax dhibaatay aanay jirin bisayl badanina soo kordhiyo soo muuqday Maxamed waxaan ognahay in maanta doorashadani ay ahayd tii ugu dad badnayd oo in ka badan 700 oo kun oo qof ay codeynayeen haddana marka la qiyaaso populationka Somaliland waxa la yiraahdaa ilaa 2 milyan waa la heli lahaa oo kaarka qaata dhinaca markaad ka eegto in kastoo kuwii hore ka badan tahay haddana teen outki ama intii kaarka qaadatay tiradii laga filayay way ka hooseysay haddana xamaasad bay xagga dambe ka yeelatay marka xamaasadaasi markii hore ee kaararka la qaadanayay miyaan jirin runtii كل حاجة دنبي حماسته كبدت انتي هو رسيدن ومي جرين
waa talabaade doorashadu waxay lahayd saddex step oo kala duwan oo diiwaangelintii kaadh qaadashadii marka waxaad yaro moodeysay processkaas inuu yaro cuslaa oo ka cuslaayo maaragtay dee adduunyada kale dadku iska sii diiwaangashan yihiin iyagoo sii diiwaangashan unbaa mar keliya la codeeyaa marka xaggan dambe dad badan oo isku qoomeynayaan waan arkay oo weydiinayo le war talow iminka ma la qaadan karaa iyo talow iminka qofkii aan hore isku diiwaangelin maaragtay ama kaadhka qaadan iminka ma codeyn karaa marka xamaasadaasi way naga dhinay talabaad dee proceskaa saddexda steba noociisuna way nagu cusbaa oo markaa kolley waxaan rumaysanayo in tanta ku xigta haddii ilaa yidhaa inay ka xamaasad badanayso inay kana dad badanayso dad badan baa arkay sida markuu qofku diyaar garoobo kaadhkiisa qaato isdiiwaangeliyo kaadhkiisa qaato codeeyo siduu muwaadinimada u dareemayo inuu isagu yahay ka madaxweynaha dooranaya ama ka baarlamaanka dooranaya ama ka magaranaysa hogaankii dalkiisa dooranaya marka runtii xamaasaddu xagga dambe ka badatay haddii imika laba xisbi baa labadiinana ka joogtaa niman aqoon-yahanina waa tihiin ma u malaynaysaa in dhaliisha ay lahaayeen dadku kaadhka u qaadan waayeen saddexda xisbi sababtoo ah waxaynu ognahay saddexda xisbi inay ku qurux badayd markii kaadhka la qaadanayeen iyagoo wada socda dadka laga dhaadhiciyo oo uu yidhaahdo ninka musharaxay haddaad iridaysana codkaad igu ridi lahayd kaadhkiisii qaado haddaad isaboort garanaysana kii aad igu taageeri lahayd qaado laakiin aada moodeysay inaa horeba ku bilowdeen xisbiye kala socda way dhici kartaa inay qayb ahaan taa tahay laakiinse qayb ahaanna waxay tahay iminka adigoo kale markaad hadlayso waxa laga yaaba kaadh qaadashada iyo isdiiwaangelintu waa wax kuu caadi waad fahmaysaa dad baama fahmayba anigoo dad xaafadeeda joogo i weydiiyey horta waxani waa sige kaadh qaadashadani macnaha adiga imika kuu sameynaysa waxaad tidhi qof mutacalimo way kuu muuqataa iyo isdiiwaangelintu xitaa mabay fahminba waxay kumuu duxin marka kolley in dee dadka loo bisleeyo howlaha noocan oo kale waa loo baahan yahay laakiinse taa lafteedu waa runtaayo haddii abaabulku marka hore la odhan laha cidda doonto hadhow codeeyo kaadama wax ku diidi lahayd weeye maa kaad wax ku dooran lahayd xitaa waa kaad wax ku diidi lahayd waxaad nacabta waxaad jeceshayna ku dooran lahayd sidaa yeel waa laga yaabi lahaa malaha ina dee dadku intaa ka badan lahaa maxamed waxaynu iyadana ognahay markaynu ku noqono arrimahaasi kaadh qaadashadii iyo bilowgeedii iyo howlaheedii iyo sidaas waxaynu ognahay markaynu qiyaasnay dadkii codeeyey inaanay halkii loo baahnaa gaadhin waxaa kale oo iyaduna carqalad ku noqotay asxaabtiina dadkii markii hore meeshii laga register gareeyey in haddana dib loogu raro oo dadkii ama caasimadda laga guro ama magaalooyinkii waaweynaa laga guro haddii qalabkaynu isticmaalay u ahaa kii casriga ahaa ee adduunyada ugu dambeeyey maxaa diiday qofku meeshuu doonaba ha jooge hadduu kaadhkan haysto inuu ka codeeyo goobta joogo horta tii hore ee maxay arrinta maaragtay yaraanta duruufo gaarina way jiraan oo abaaraa jiray oo dadku way kala guurguureen oo haddii bidmaayo taa xataa waxaa ka horreeyey doorashado dib u dhacdhacday oo iyaduna qof kolba niyad jibinaysa inta dadkii la kiciyo mar baan isku mid ahay inaanay aana xisbiyadu iska soo horjeedinba oo kaadhku keliya la wada waday laakiin way kaga katay oo taasaa dabeetna niyad jab bay keenaysaa dabeetna waxaan kusoo dhawaanay waqtigii doorashada dee waxa keenaysa markaas sidan kala qaybsanaantuna waa laga yaaba in xamaasad dheeraadaba abuurtay oo xisbiyadu ay abuureen aanay yaraynayn tii kale ee matalan aad leedahay culayska ay keenayso soo maaha iyo maxaa laga rabaa in qofku ku xidhnaado meel horta innaga dhib bay nagu tahay oo dunida dee dadku address buu leeyahay oo qofku meel buu jooga constituency buu leeyahay halkaasubaa lagu register garaya marka qofku siyaasaddiisa o dhan waxay ku xidhan tahay iyo awooddiisu dee meesha uu iska register gareeyey innaga qudheenna waxay ahayd inuu qofku meel ku xidhnaado dee duruuftan haddii si allaale si aad baa looga fakeray waxyaabaha ugu dooda badnaa waxay dad reer binye baynu leenahay dadku way guurguuraan jilaalkii meel bay joogaan gugii meel bay joogaan aad baa arrintaa loo wadwaday si la isugu hagaajiyo ka magaalada jooga dee waaba lagu register garan karaa meeshiisa oo habkan qofka voter registrationku votingku had iyo goor meel bay dee qabiilana ma aha qaran dhanna maahee constituency baad leedaho parliamentarian baad leedaho dee meel baad ku tirsan tahay laakiin dadka aada looga fikeraya waxay dadkan guurguuraya iyadoo qudheedii waxa la isku hagaajin kari waayey uun technically ayaa la isugu hagaajin kari waayey commissionku isugu hagaajin kari waayey
qofka haddaad sideebaad intaad aad qofna u fasaxdaa hadhowtana uu qofku uga mid noqdaa meel keliya ama dee magaalo uga tirsanaada ama degaan uga tirsanaada ama baarlamaan usoo dooran karaa yeelkadeedii waa arrin inoo taalla inaynu xalilo aynaan xalilin inaynu dadkeenna dhibaatada waxbaynu rarnaa inaga wax soo rarnaa meelaha yani magaalooyinkeena dhexdiisa noo kala rarnaa taa in la iska daayo qofku magaaladu jooga iska register gareeyo burcaya berbera la isaga raray burcaya hargeysa la isaga raray hargeysa boorama la isaga raray inaynu ogolaano qofku inuu iimaansado meesha uu joogo hadduu parliamentarian u footeynayo hadduu u footeynayo cid kalaba inuu halkiisaa ku iimaansado oo tan qabiiladu inaga yaraato xoogay imika weli xaafadaynu iyo region aynu ka nimi taasaa yaa leh marka xaqiiqiyan xisbigana waa ku culays dadkana waa ku culays waana la bislaanayaa waxaanad ogaan doontaa berito codad badanna way ku lumeen dadaan meeshoodiiba ka noqon intay meel kale ka soo qaateen waxaan u malaynayaa uun bisaylkaa somaliland iyo dadkeedu bislaanayaan tan wixii ka dambeeya inay iska yaraan doonto horta dalka gudihiisa dadka la isaga raraya axmed ma u muuqataa taa lafteedu inay qeyb ka tahay dhiiri gelinaysa qabyaaladda waayo marka imika la yidhaahdo reer boorame reer berbera reer burco reer hargeysa reer cerigabo reer sool marka la yidhaahdo ciddii hargeysa ka joogtay ha loo raro waxa loogu rarayaa reer ahaan baa loogu geynaya marka waxaa la doonayaa reerka codkiisii ama xildhibaanadiisii inay laascaanood ku xidhnaadaan halka uu ka dhici lahaa ninka reer laascaanood inuu hargeysaba isagoo xildhibaana kasoo bixi karo maadaama uu xildhibaan qaran yahay ma laga yaabaa isu celintaasi inay keenayso kala qaybsanaan iyo dadkii oo marba qolca loo dhinac loo raro horta dadku marka hore qabiilooyin ahaa labada dowladnimada inagu cusub waxaa loo guuraya waa xagga dowladnimada marka hore dadku dee qabiilooyin bu ahaa ama deegaamadaynu ku nooleen ha noqdo ama sida kale setinkeenu ahaaba ha noqdo wax inaga wada baxayna maaha wax imika qabiil la noqonaya maaha imika xaggii dowladnimada loo siqaya marka dee way jiraanba imika haddaad hargeyso kalaba eegto doorashadiina soo dhaaftay dee geopolitically dadaan deegaanka kasoo bixi jirin baa kasoo baxay oo dee doorashadii u dambeysay kasoo baxay in the long runna waxaan malaynayaa dee siday 20 sanood ahaan jirta hargeysa ahaan mayso doorashada ku xigta dad badan oo aan deegaan ahaan berigii hore lagu tirin jirin hargeysa ayaa kasoo bixi doona kolba dowladnimadeenu si adkaanayso ay dowladnimo adag aan sii helayno ay qabiilkana waa laga sii fogaanaya waxay ku xidhan tahay hadda kolba dowladnimadeena iyo nidaamkeena iyo registrationkeena iminka dee waxaynu isku abaabulaynaa inagoo is og dee inayn haddana dimuqraadiyaddii iyo dowladnimadii sheeganayno haddana hoosta dee qabiilkuu ka socdaa oo dee abaabulkii ololihii caaqil baa wada oo suldaan baa wada oo sheekh kalaa wada oo deegaanka marka waxaad odhanaysaa dee waa insurancekii ha ka bixida meeshii ma garanaysaa kusii lug lahow laakiinse dadku markay kolba sii arkaan dowladnimo hagaagsan municipality shaqaynayo biyihii iyo laamidii iyo magaaladiisii wixii oo dhan xagga dowladnimadana waxaan qabaa in markaa loo badan doono markaa ma muuqataa marka lagu noqdo 1960 magaalada hargeysa waxaa kasoo baxay laba nin oo nina shuuriye ahaa nina cumar dheere nina nin reer hargeysa degaan ahaan ah muu ahayn kuwii reer hargeysa degaankooda ahaa ee sharaxnaana way hadheen ma laga yaabaa markaa dimuqraadiyaddii waktigaa jirtay hargeysa inaanay maanta jirin imika doorta ma jirto xamaasad badan oo xilligii gobonimada la qaatay bay ahayd xamaasadu aada oo badnayd iska dhaaf labadaas ee shanta Soomaaliya markaa la raadinayay oo markaa hamigu intan uu ka badnaa sidan yare hoos marka la isugu yaro fiirsado xoogu may jirin markii dambase dee taas way baabaado eg marka aad leedahay cadow fog higsigaaguna uu ka fog yahay intan yare xaydaankaaga ah dee waxyaalaha qaarkood hoos soo eegi maysid berigaa shuuriye cumar dheere soo baxay waxaa laga fikiraya NFD iyo Ethiopia waxaan jeedaa regionka Soomaali galbeed waxaa laga fikiraya Djibouti waxaa laga fikiraya Soomaaliyo midowda oo dee Soomaali weyntii shantii Soomaaliya marka wax yare hoose lagu meereysanaya muu ahayn wax arrin jira imika dee waxoogaa waa halkii arrinkuu soo koobmay marka mar kastaba kolle waxaad leedahay cidaad haysaan marka samaysan weyda higsi kasii badan intaa dee hoos ba warwaraa lasku noqonaya marka agsaan waxaan qabaa haddii dowladnimo wanaagsan la helo oo dowladnimadeenu intan kasii adkaato oo dhaqaalaheenu intan kasii koro wacyigeena iyo aqoonta inta kor uga kacdo qabiilka si dhib yar baa lagaga maarmaya saasaan u rumaysana okay haddaynu ku noqono haddaba doorashadii maanta maxaad u malaynaysaa carqaladaha dhinaca farsamada oo kale soo baxay u baahan in la taabto
horta doorasho waliba oladan waxaan u malaynayaa dee farsamada commissionka inoo hayay marka commissionkuna waxay la tahay intii taalkooda shaqo wanaagsan shaqo hawl yar maaha dal aan wadooyin lahayn dal aan aqoonta dadka iyo dadka dee loo isticmaalaya aanay heerkaa gaadhsiisnayn dal la doonayo qabaa'il iyo wax laga cararayo la doonayo in la isku bedbedelo oo aanu qofna meeshiisi loo deynahayn aad iyo aad wax hawl aada u culus weeyaan hawsha doorashadu doorashooyinkii laakiin xoogay barasho ah baa ku jira tii doorasho walba qabqacda iyo kacakufku iyo transportka baabuurta sida loo diray waxaas way ka hawl yaraayeen iminka tan laakiin runtii markaad bowling stationka gudihiisa gasho waxaad dareemaysay dhalinyarada meesha la keenay iyadoo dadaal badan iyo xoogay trainingana la siiyey laakiin wakti maanta oo kale waxaa laga yaabaa 2 saacadoodii ugu horreysay 7 bay bilaabantay ilaa 9 iyo barhkii waxba ma fadhiisanin warqadda sida loo baarayo dadka marka capacity-ga dadka ka shaqeynaya dadkii oo kala maqan logistics waxyaaba caynkaas oo markii dambe dadaalkii dambe ee xisbiyada iyo kolba cid u yeedh iyo ay tobaneeyadii way iska saxantay oo iska stabilize garooday oo markii hore wuu yaraay marka caadi bay isaga bilaabantay marka wuxuu bay kamid tahay wax kastoo la bilaabaya doorashadan sideedaba logisticskeedu waa wax culus waxoogay aad iyo aad baynu wanaagsanayno maaragtay dee qawaaniintii iyo awaamiirtii commissionka inaan la campaign garayn in aynkaa dadku kuyuuyada si fiican bay carqaladi ma jirin wax isku dilayaa ma jirin waxaas oo dhami straight forward bay ahaayeen shaki laakiin xisbiyada maaragtay isna wuu iska jirayo mararka qaarkood haddii beedmaayo xisbiyadan mucaaradkana ka soo jeedaa dee waa iska waa underdog baa la yidhaahdaa had iyo goor in la dulmayo ayay isaga yara qaataanoo dowladda iyo xooggeedii iyo booliiskeedii iyo militarigeedii iyo waxaasoo dhan baa meesha ka muuqdo baqdi badanna way jirtay xoogay dhacdooyinna way jireen oo u baahan in la saxo aan lagu noqonin oo dad magaranaysaa mas-uuliyiin ahoo matalan dee laysku dhacay iyo qaar la xidhay iyo laakiin muhiimadda doorasha inuu soconnay nabadna inuu ku dhacday inuu soconnay tii ugu fiicneyd iyo nabaddii ugu fiicneyd baynu samaynay baan anugu qabaa aad u soo arkaysay maxamed cali bile arrimahaas really waxay ilaahayd marka loo eego taagteena iyo loo eego dhaqankeena wax mucjisa ilaahayd dee waad ogtoo ololaha intaasoo bilood lagu soo jiray ama ha noqoto ololihii officialka ama kii aan officialka ay ka horreeyey dee lasoo waday wixii baa la yidhi 12 saacadood ha lagu wada dhammaystiro markaad u eegteed waxaasoo dada 700 iyo siyaado kun oo qof 12 saacadood meel ha kaga wada rideen runtii commissionkan oo ammaan baan u jeedinaya intii dadaalkooda taagtooda ahayd of course wax ka badan oo lasii fiicnaysiin kari lahaa way jirtay waxaa kaloo iyana ammaan mudan markaad eegto xamaasadda ay xisbiyadu wax ku wadwadi jireen iyo haddana sida doorashadu u dhacday oo aan wax badan oo dhibaato la sheega aanay soo bixin ama aanan maqal kolley waxyaalo yaryar oo iska dhacaya iyada laftigeeduna waxay ilaahay keliina dee mucjiso ahayd waa laga yaaba in wax yar meel iyo meel ka yara dhaceen laakiin wax sidaasoo la sheego oo qardoofaa ama dhiig daata ama dhibaato kaloo dhacda oo weyn oo dhacday dee may jirin alxamdulilah taasina way fiicnayd markaad leedahay dan ka dhex galo wax lasii fiicnayn karaabaa jiray maxaad ka soo qaadi kartaa meelaha u baahnaa in lasii yaraa dee waxaan ka soo qaadi karaa kolle technologyga adduunyadu isbedelay sidan number 1 dee dhalinyaradan ama muraaqibiinta xisbiyada ha noqoto ama qolada commissionka ka socota ha noqoto ama waxaan oo dhamin waxaan lama sii practice garayn marunbaa dad laysu keenay qoloba meel ka socoto meel la wada fadhiisiiyey dee waana doctor si kastoo dabaasha afka lagaaga sheego marka badda gashunba dabaasha baranaysa marka waa halkaa doctor maxamed cismaan sheegay dhowrkii saacadood u horreeyey baaxadeg badan baa ku jiray waxanaa sidana wax kalaa sidana kan kalaa maqan warqadaa maqan haddana shaki yarna dadka iskaga sii wada jiray oo maaragtay xisbi hebel baa sidaa doonaya inuu sameeyo qolaa doonaysa inay sidaa samayso laakiin markii dambe 10kii iyo wixii ka dambeeyey laakiin waxaan qabaa in wixii hadda ka dambeeya technology la adeegsado waxaa kaloo iyana meelaha lasii fiicnaysiin jira ka mid a marka lagu idhaahdo meeshii yaraydunbaad aad berigi dadkii duruuf baa wada haysa dadkuu kala shaqo tegey hawlaa la kala yeesha meelaa la kala tegey mar haddii biometric meesha soo galay oo indhihiina layska qaaday
maaragta de in la sahlo in siyaalo badan oo kalena xitaa online loo codayn karo in the long run online dadku u codayn karaan inkastoo de haddana ay u baahantay taa lafteeda security badan in la sameeyo haddana in la fududeeyaan inuu qabaa inay dhici karto waxaynu leenahay dad fara badan oo sidaynu ognahay reer guuraaya ninka reer guuraagiina wuxuu la guuraa marba duruufta xoolihiisa haysa kaadharhkeennina waxaynu markii hore ka dhignay inuu meeshii uu ka qaatay ku codeeyo dee ninkii oodweyne ka yimi iyo kii caynaba ka yimi baa gubila yimi dabadeedna waxay mushkilad noqotay in kaadharhkii badh lagu waayo itaal loo waayo in ninkaa la celiyo isaga iyo xoolihiisaba la raro markaa miyaanay habboonayn in waxyaabaha u baahan in laga guuro ay ka mid tahay kuwaas de koloweed horta waxaan barashay noo ahayd oo dee markaad u eegto dadkeena populationkiisa markii horeba dad yar baa isdiiwaan geliyey dadkii isdiiwaan geliyay ba haddana in badan lasii luus gareeyay oo in yar baa kaadhkii qaadatay dabcanna marka imika doorashada lagu rido waad arki doontaa intaa laftigeeda way sii lubaysaa dad waxaanu dad marmarka qaarkood hawadu sito maalinba halkay kula gasheen nolosha kula gelaysa maalin berberay kula gelaysaa maalin sheekh baad kasoo tagaysaa maalin boorame nolosha kaa gelaysaa halkan lafteeda duruuftu si kale ku haysataa marka in waxan la sahlo waa loo baahan yahay dadkuna imikaan waxaan qabaa markay damoran sii socono dhalinyaradu jaamacada gasho iskuulla la galo waxaa xoog loo sii ogaanayaa faa'iidada ay leedahay doorashadii inaad codaysaa oo dee hadhow ha cabanin hadhow haddaad codayn weydo ha cabanin ciddii kuu timaada ku xukunta hadhow kuma lihid waxaad ku tiraa because ka doortayba ma tihid marka an waxaan qabaa barashan inaynu ku jirnaa in halkaa hore looga sii ma jirtaa iyada lafteedu oo ma muuqanaysi markaad goobaha codbixinta tagto in uu jiro lack of information oo ah inaan dadku wacyigelin ku filan maca kuwa wax dooranaya iyo kuwan maamulaya labaduba waayo meelahan arkay waxaa ka mid ahaa in dad tusaale ahaan goobo dad ku badnaa oo dabeedna commission ku qaybiyeen oo qof maanta o dhan 5 saacadood intuu kiyo kusoo jiray markuu gudaha soo gala la yidhi meeshani meeshaadi maaha xaggaasa tegeysa horta lack of information waa buux waxaana doorashadu mahay dhaqankeena dhan buu ka buuxaaba inaan dadku macluumaadka sidii la rabay u wadaagin ciddaa markaa gaadho aniga waxay igu darnay waxay igu maanta igu yaa badnayd iskuulka biyo dhacay baan tagay marka nin la socdo dadka waxbaabuliya ka mid ahaa ayaan iska sheekaysanay markaasuu yidhi anigu anigii meeshii saxay saana yidhi warda meesha sax ma ahayna cross baa lagu dhufanayay waase labadeeda muran naga gashay cross baa lagu dhufanayay sax bay ahayd dhowr qof baan weydiinay qofba sibuu qaata war korooskii miyaad arag calaamadii marka markii dambe hadda waxaan lagu yidhi labaduba waa saxiix haddaad xeydaankaasun calaamadiso waa kuu sax marka informationkaasi kolley sidii la rabay dadka uma wada gelin ayaan anigu rumaysana hagaag waxaynu ognahay doorashooyinka caalamka oo dhan bini aadamku u qaybsamaa qaar diin bay ku qaybsamaan qaar gobollay ku qaybsamaan qaar midab bay ku qaybsamaan qaar qabyaalad bay ku qaybsamaan marka waxaynu ognahay doorashadaa dhacday lafteedu ama kambeynkii asxaabtu gashay lafteedu inuu dadka reer somalilan qaybsamay itaalkay doontaa lahaato maantana uu u baahan yahay dib u midayn si aanay mushkilad ugu noqonin mar dhow kala doorta ee soo baxa laftiisa aynu caawa uga sii hordegno bal in dadku ay dib u midoobaan maxaad u malaynaysaa sababaha ugu sahlan ama meelaha ugu sahlan ee loo mari karo dib u midaynta horta bismi illahi raxmaan raxiim waa arrin u taalla meel kasta oo doorasho ka dhacday wax somaliland u gaara ma aha madaxweyne waliba markuu yimaado waxaa la kulmaysa dee inuu madaxweyne u yahay kii kasoo horjeeday iyo kii u codeeyey ama u codeey ama codeyno madaxweynahayga waa kan mas-uuliyaddaasna waxay ka imanaysaa dowladda dhismaysa inay muujiso inaanay xisbi xukunka qabsaday oo dabeetna keligii dee maarata qabanaye qarankan dhan in haddii beed maayo ay dowladdu tahay oo madaxweyne u yahay oo resourcekoodu maaragtay u siman yihiin oo haddii beed maayo mas-uuliyadaasu waxay fuulaysaa sida loo midaynayaana sidaa weeyaan waa dadkan oo aan laga dhigin mid gudaha ku jira iyo mid dabadda taagan meelo badan baana ka dhacdaa afrikada iyo
qofna dibadda taagan oo mee inta yadii heshay annaga gudaha ku jirna taas ayaan laga dhigahayn madaxweynuhu wuxuu ka dhigayaa dowlad dadka oo dhan ka dhaxaysa dowladdu samaynayaana kulleyba mid reflect garaysa waa inay noqotaa dadkana haddii beedmaayo weyn laga daweeyaa doorashada oo uu dee midi yani wixii shacaarkii la isticmaali jiray oo dhan markuu isbedelo maantaba waxay isaga ekay dee sanduuq baa la gelayey sanduuqa qofku labadaba saddexdaba waa hor imanayeen mid gaara markii hore mid gaar uu sacabayn jiro calan gaar uu sidan jirayo mid gaar uun la ordi jiray laakiin maantaba saddexdii baa hor yiilay imikana waxay noqonaysaa uun in dadki sidaa u midoobaano 5 sannadood intaynu gaarayno inaynu danteennii guud iyo usoo noqono iyo degenaanshaheennii iyo shaqadeennii iyo nabadgelyadeennii iyo walaalnimadeennii colaadii dimuqraadiyadda gebigeeduba colaadi kama dhalatay madax baa la bedelaya madax waxaanoo qayle waxay u dhacayaan kursigan unbaad qof kala geynaysaa laakiin labadiidnu istili maysaan saasay ku timaada runtii aniga waxay la egtayeen de horta saddexda xisbi maanta inoogu dambaysa way iska sii jiri doonaa laakiin horta de intan hugunkoodii iyo calamadii badnaa iyo kheyradii maanta inoogu dambaysa hal xisbin baynu yeelinaa dawa dowladda meesha markaa timaadaba kii uu ilaahay ka dhigaba waanaynu ku qasbanay in dowladda la wada taageero waynu ku qasbanay laakiin in dadku midoobo oo hore halkaa uga socdo waxay ku xidhantuun madaxweynaha la doorto isagu maana dadka ama midayn kara ama isagunbaa tafaraaruqa sii badin kara mas-uuliyad dadka saara ma aha dad baa ku odhan doona hadduu dadkeenu wanaagsanaado madaxdooda anu taa ma rumaysnin hadduu dadka madaxdooda wanaagsanaato dadku wanaagsanaana waa la hubaa marka waxay ku xidhantuun qofkaa yimaada saddexdaa nin kii doona ha yimaadee dee kii doona o dhan kii la doorta ha yimaadee ayay horta ku xidhan tahay anigu mana rumaysnin midayskan maaragtay xisbi hebelna wax ka soo qaado reer hebelna wax kaga soo dar kaa kaga soo dar taasi way iska yara jiraysaa laakiinse waa inu madaxweynahaasi wax qiyam la idhaa ku shaqeeya qiyam dadka lagu hogaamiyo qiyam ay dowladdiisa ku dhisan tahay cadaalad un baana dadka ugu dambeynta deeqi karta xitaa haddaan adiga kusoo gaadhin haddii madaxtooyadaasi ay ka muuqato cadaalad iyo dhaqan dowladnimo muujinaya dhaqan muujinaya inaad tahay qof dadka u dhaxeeya oo aan cid gaara u dabranayn aan dad gaari ka ag muuqan aan dad gaari aan saameyn ku lahayn cadaalad dadku xitaa haddaanay shaksiyan waxba kusoo gaadhin waad ku qancaysaa waad aaminaysaa laakiin haddaad istiraahdo dadka shaksi u qanci ama reer u qanci ama koox u qanci ama xitaa haddaad istiraahdo xisbigii kaasoo horjeeday qanciyo iyaga laftigooda maaragta soo jiido ugu dambeynta waad fashilmaysa because dowladnimadeedna ma wada deeqdo cadaalad bayna deeqda madaxweynaha la doortay ku xidhanta inuu ummadda mideeyo oo uu aanay weli niyadiisa kusoo jirin usii abaalgud kuwii kusoo doortayna kuwii ku diidayna halkaa maxamed cismaan sheegay dee sii fogeeye xaydaanka ka sii fogeeye dowlad loo siman yahay oo qofku halka uu dowladnimada ka gelayo tartan iyo uu kusoo galo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo dee dadnimadiisa kale dad ethics leh oo aan musuq maasuq lagu tilmaamin oo aan xoolo ummadi leedahay qaadan oo aan dhaqan hore oo xun oo lagu sheego oo dad kala qaybin aan lahayn qofka wanaagsan ummadda ugu dambeynta way qirtaa si kasta oo marka hore xisbi qofka wanaagsan ee qiyamka wanaagsan leh way qirtaa marka madaxweynaha lasoo doortay ayuunba ama idna qaybin kara oo rabashina sii gelin kara ama ummaddaa midayn kara oo mid ka dhigi kara mid kalena waxaad isweydiiyaa oo dad badana isweydiiyaan runtii iminka 3 xisbi baa sharaxnaa 3daa xisbi ee sharaxan kii soo baxaba waxa lagu soo doortay cod individualisa oo galbeed ilaa bari guntii somaliland intay joogto bal looga codeeyo maxaa ku khasba markaa musharax ninkeena soo baxaa inuu isagoo cod ku helay gees to geesa dowlad ku salaysan qabiil sameeyo horta waa daciifnimo eegada horta waa daciifnimo maxamed cismaan baa kolle isna wax ku daraya horta waa daciifnimo kol haddaad aragto qof qabiil iyo xidhiigsan talabaad waa dariiqa ugu sahlan inaad qabiil wax ku doontaa oo hawl badan kaagama baahna siiriyar baad ku dhufanaysaa caqli hebel in yaroo iska laakiin marka aad doonaysa inaad dee meritocracy iyo karti iyo hufnaan iyo daacadnimo shaqayda kaa rabtaa inaad waxaan u fiirsato marka qof aan rabin inuu shaqadaa galo kalsooni darrana way tahay qayb ahaan oo waxbaad isku yaro xeeraysaa dad ama reerkiina ama dad kale oo ku taageera hadiyo goorna madaxweyneyaasha sidaad aragtay mooyaane mar un baad moodaan siduu qofku u hagaagsanay in hostage un loo qabsado cid un baa isku xeerta uno
oo iyagiyo ummadii kala dhex gasho marka anu waxaan qabaa un haddii saddexdan nin ilaahay kii soo saaro uu de meeshaa qabto de haddii uu is yidhaahdo dariiqyadoodo dhan way inoo furayi ka wanaagsanna way inoo furayi kan kalena way inoo furayi kan qabiilka iyo ama eexda ama koox yar isku duubista ama dad kala qaybintu inta hore waa sahal ugu dambeynta si aduu kusoo dabraya maxaad ku dar hagaag bal imanka waxaynu eegeynaa kayse axmed digaale oo isaguna inooga waramaa sidii maanta doorashada uga dhacday magaalada burco kayse bal ka waran magaalada burco sidee guud ahaan maanta ay uga dhacday doorashadu guud ahaan gobolka soolka maanta si nabadgelyaha way uga dhacday doorashadu waxaa mooda dadkii aada u sugeeyey dadkii dhexe xalay baa dad goobaha sii fadhiistay oo tageen oo qof kastaba goobta kuray kusii diyaar garoobay taasina wax la dagaaga oo socda oo meherad ganacsi oo magaalada ka jiray ma jirin qof kastaba doorashadu ka howlaa markaas si nabadgelyaa leh ayay ku dhacday way dhamaatay way soo xidhantay waxaa soo dheeraa goobo kamida magaalada ayaa saacadii dhaafay dabeedna halka dambaa la iska taagay dadkii haray sidii iyaguna ku dhamaadeen markaa iyagoo sii fiican oo nabadgelyo ah oo aan buuq lahayn oo aan xasiro lahayn ayaa ku dhamaaday dadku waxay sugayeen bay ahayd markaa si nadiifa marka macadilooyinkii iyo meel kastaa la xidhiidnay oo taadii ka dhamaadeen cawskooda way soo xaroonayaan hareeraha magaalada ahi markaa kolley si aada u fiican oo wanaagsan ayay ku dhacday inkastoo dacbashooyin iska jirjireen si fiican bau dhacday doorashadu aad baad umahadsan tahay kayse waxaynu ognahay imanka shacbiga reer somaliland oo kale markaad eegto shacbiyo badan oo dhinaca afrika jooga waxaa dad badan rumaysan yihiin inay shacab dhinaca dowladda marka la yidhahdo ka ogol ahaayeen sidaynu ognahay maanta oo kale bandoobay ahayd intii baabuur ee commissionku bixiyey mooyaane baabuur kale oo waddanka soconaysa may jirin koonayaasha magaalada markaad ku wareegto askar maad arkayn haddana gaari socdo maad arkayn waxaad arkaysa markaa dadku inuu qaadanayo wixii amar ah ee xukuumaddu farto oo la fulinayo marka waxaad laakiin moodaa inta badan haddii shacbigani helo leadership wanaagsan oo hogaamiya inay yihiin dadka sidaa u ogol ee bandooga la saaray oo aynu ognahay inuu dhibaatooyin leeyahay oo dhibaatooyin dhaqaale leeyahay oo dukaamadii qaar xidhnaayeen oo dadku meheradahoodii xidhan ay quutalyoomka kala soo bixi jireen haddana ay taa aawadeed qof waliba u sacrifice gareeyey inuu meeshiisa xidho marka shacbiga noocaas oo kale ah waxaa haddana la yidhaahdaa dadka reer somaliland way adagtay in la xukumo ama qaar baa caam ka dhigo yidhahdo soomaaliba in la xukumaa way adagtay saad u aragta adigu arrimaha noocaas ani waxaan u arkaa inay shacbiga somaliland muujiyeen aada iyo aada u muujiyeen inay dad qaynuunka ogol qaynuunka dad ogol iyadoon xoog iyo boliis iyo askar iyo ciidana qasbayn qaynuun commissionku xataa madaxweyne maaha laakiin fikirkaa commissionka ka soo baxay qaynuunka ay commissionka soo saartay dabeetana la socodsiiyey cid walba ilaa ay socodsiinayso waxay inoo tusaysaa dad horta ummad qaynuunka qaadatay inay tahay qaynuunkana bisayl baa dadka u keena oo ay ku qaataan qaynuunka hadday qaadatay waxaad soconaysaa malaa dee qaynuunku waxaanu la mararka qaarkood loo tabayaa xagga dadka kama yimaadee malaa xagga xukunku ka yimaadaa haddii markaa sidii horeba dee maxmed noo sheegay dowlad wanaagsan iyo madaxweyne wanaagsan iyo xukuumad wanaagsan oo iyadu qaynuunkii ay dhigatay ee lagu doortay ku dhaqmaysa hadday timaado shacabkuna intaa in leeg bay ka horeynayaan oo ay ogolaanayaan halkaa waxaa kaaga muuqata fursad aada u runtii qaaliya inay somaliland u taalo inay ummad qaynuunka ku dhaqanta hadday noqoto soo imika ictiraaf kama hadallo wax allaalo wax ka hortaagnaanaya ummad qaynuunka ku dhaqantay hadday noqoto oo caalamka la jaan qaadi karta ciidina ka hor istaagi mayso marka aada baan ugu ammaanayaa waxaanan tusayaa dowlad kasta oo ummaddan iyo madaxweyne kasta oo ummaddan xukumaa qaynuunku xaggiisa haddaanu ka xumaan xagga dadka ka xumaan maayo waxaynu kala ognahay inagoo weli ku jiraa qodobkaa qaynuunka commissionku waxay soo saareen sharci kale
oo ay ka codsadeen dhammaanba shirkadaha warisgaadhsiintu inay joojiyaan ama jaraan baraha ay ku xidhiidhaan bulshadu ee social media la yidhahdo, shirkadihiina ay aqbaleen. waxaynu kala ognahay dhinaca xuquuqul insaanka oo kale laftooda in iyaguna arrimaha cambaareeyeen oo kasoo horjeedeen. bal ka warran adiga siday kula muuqataa labada dhinacba? runtii markii ay commissionku yidhaahdeen iyagiyo shirkadiina ku heshiiyey inay joojiyaan, dad ajnabiya unbaaba ka cawday oo ummadaha kale. dadkeenu halkaa doctor maxamed ismaan sheegay weeyaane qaynuunku way ogolyihiin, shirkaduna way aqbaleen, dadkuna way aqbaleen. cid sidaa uga cabanaysaba oo dhibsatayba ma jirto. hay-ado dibadeed baa waxoogaa dhibsaday oo yidhi maaragtay xuquuqdii dadka lagu gafayo caynkaa iyo caynkaa. waana de qodobo muhiimay sheegeen commissionkii oo ay yidhaahdeen maaragtay waxaan diidaynaa inuu hadal huhaayo badan oo beeni dadku isla dhex maro markaa tashuush u dhaliyo. laakiin anigu general waxaan arkay horta de inuu dadku dad qaanuunka u hoggaansan inay yihiin, shirkaduhuna qaanuunka u hoggaansan yihiin. inkastoo anigu shaksiyan aan u arko inay jiri lahayd siyaalo sidan ka duwan. haddii goora markaad wax si yara qarqariso shaki baad sii abuuraysaa. waxaa fiicnaan lahaydba in 10 telefishan dalka jiraaba ay commissionka hoolkiisaba ku lahaadaan live 24 hours oo wixii yara yimaadaba miiska lasoo dhigo oo la sheego oo dadka social media fursad waayo imika haddii aad wax dib u sii dhigdhigto imikadanba tashuushka uu sii socdaa. the more aad runta dib u dhigto beenta ka dheeraynaysa markaba. markaa marka dhow beenayn unbaad ku waalanaysaa. meena warka aad maqasheen been buu ahaa, intaad been odhan adu beentaba ka horee. markaa waxaan qabaa dee kolley doorka ku xiga in waxaan si live ah telefishinadoo dhan uu u galo oo commissionku ay ka dheereeyaan cid kastoo kaleba. anigu haddaan waxaad aniga waxay la tahay arrintaa issuegaa keligii haddaynu qaadano midna waa wax dee matalan qodob baynu leenahay dastuurka ah oo dee odhanaya de waa xor, media waa xor. marka mararka qaarkood dad warwarka wuxuu ka imanaya inay wadda halaq noqoto si hawl yar haddii wax laysaga bedelo berita haddii social media la bedelo tviyadana wanaga ka cabana had iyo goor warwarkeenu waa kaa inaynu damaanad helno inaan si hawl yar u noqonin. laakiin duruuf maalin dhacaysa oo mar gaara ayuunba dadku u aqbalayaa. waxaan u malaynayaa haddii wax caadi noqon lahayd oo imika la odhan lahaa social media baanu joojinaynaa inaanay cidna aqbasheen. marka warwarku halkaas buu ka imanayaa. laakiin inagu halka aynu macnaha ku leenahay waxa weeyaan aynu ka midaysannahay halkaa markay dantu gasho ee aynu duruuf gaara ina haysato inaynu nidhaahno matalan 3 xisbi oo kale annagu xisbi ahaan waanu isweydiinay miya advantage miyu wax dhibaynoo keenaya gaarahoo ka kalena uu siinaya wax maya soo 3 baynama haysta ha bes hadday nabadgelyo tahay. okay marka ma jirtay ama ma dareensanaydeen halistaa commissionku ay u joojiyeen inay jirto? anigu waxaan isleeyahay midna waa gudaha midna waa dibadda. social mediaha dibaddu waa sida loo isticmaalo ama dee social media waa si kayr caadiya wax badan oo dadkeenunbaa iska dad muxuu ahaa isaga bisil nabadda oo aan doonaynin. laakiin wax walooynu la kala xishoonno markaynu dhulka dee wada joogno oo aynu suuqa wada joogno mafishada wada joogno xafiisyada wada joogno ayaa meesha gala. marka waxaasuna marka ay xasaasiyaad ku jiraan dee wad is odhan karaysaa khatarteeda ay leedahay. marka anigu taa dadka ugama warwarsanayn. dadka sidaa maxaad sheegay haddii wax walba open ay tahay oo la sheego tuuladaa intaasaa ka soo baxday, tuuladaa intaasaa la kala helay, taa intaasaa la kala helay oo banaanka ay taallo way wanaagsanaan lahayd. waxaana dhib ma timaadeen. taa uun weeyaan dibadda ee hunuuhanaada iyo nahanaada ee dadka laysu dee reer hebel baa helay iyo cali baa helay ta ay tahay ee dadku ugu dulqaadanayaan ay leeyihiin warba horta taasu haynaga xidhanto. waayo xad dhaaf bay ahayd runtii mararka qaarkood waxyaabaha meesha ka soo baxaa cidnama controlshadii adduunka wadiga arkay meelaan control ba lahayn oo cid website-yada wada aragto qof baa loo raacaya. laakiin meelaan cid ba loo raacin qofkii intuu kamera yar isku xidho maqsin isku xidho telefoonkiisana odhanaya dee dhibaatadeeday yeelatay. marka iyadoon lagu talax tegin dadka xuquuqdiisa haddana marka maalinta ay khatar keenayso dee waa la aqbalo sababtaasaa loo aqbalay. hagaag imika waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenan aynu caawa kaga hadlaynay arrimaha doorashada. dardaarankaaga marka aad doonayso maxamed cali bila ahaan inuu kaa gaadho ama xisbi ahaan lafteeda bulshada waa maxay?
mahmaa soomaaliyeed baa jirto odhan jirtay malaha doqoni meel lagu wada maxay ahayd lagu wada hadlay bay lagu kaftay in lagu kala tagay in lagu kala tegay mooda war meeshan ololahani wuxuu iska ahaa un in yaroo ahaydun malaha musharaxaaga intan yaro dhaama saddex ninoo de waxay ahaayeen saddexduba wanaagsan saddexduba dee dalka hawl ka soo qabtay mas-uuliyad ka soo qabtay kii doonaha calfada ugu dambeynta hal ummadun baynu nahay ugu dambeyntana dadka dantu isbaday waa inteenan taageerayaasha saddexda xisbi u ah waa inteenan jaarka ee biyo la-aantu haysay doonayeen biyo loo sameeyo waa inteenan doonaysa in wadooyinka laga hagaajiyo horumar la sameeyo waa inteenan caruurtoodu qaar badan shaqalaayihiin jaamacadaha kasoo baxeen kale shaqalaayihiin haddaad wadani taageerisay haddaad uci taageerisay haddaad kulmiye taageerisay caruurtaada shaqada le waxba isbedeli mayso haddaan dowladnimadaadu aanay hagaagin oon horumar lasii gaadhin markaa shacabku waa isku wada duruuf xisbigu doonaha ka tirsanaadee marka waxaan yani haddii marmarka qaarkood dadka qaarkood malaha u arkeen in lays hayo oo dee gaaliya islaam laysu hayo xabashiya soomaaliya midna lama kale he dadku waa wada dadkii uun ka soo baxaana waxaad ogaataa uun inuu yihiin kii aad adigu waday un mid in yar si yaro dheeraaday waa inaad ku qanacdaa un in adigu shaksiga maa dooni waxaad doonaysaa in dalka iyo dadka iyo ummaduba ay horumar gaadho marka waxaan odhan lahaa ciddii noo soo baxdaba ha lays hareero taago ha la taageero ha lala shaqeeyana maxamed adna aniguna waxaan odhan lahaa uun aad baa maalmihii dhaweyto marka la hadlayo waxaa aada loogu celcelinayay madaxda ilaahay baa doortaa marka dadkuna dee wixii maaragtay maalinkan maanta dantu qof waliba uu arkayo iyuunbuu raacay waxaan isleeyahay tacab inaguma yarayn dadaalna inaguma yarayn waktina waaba inagu dheeraa kambeynku haddaynu intaa soo gaadhsiino nabad aynu ku dhammaynay waxay ila tahay wixii ugu qiimaha badnaa aynu lahayna waynu ceshanay oo nabadeena ayay ahayd caalamkana waynu ka yaabsanay oo waxyaabo badan oo yaab leh kowdina de waata la sheegayaba inaguna inaynu alxamdulilah nidhaahno sidaa horta isku gacan qaadno shaqaa imika inoo taalla marka la kambeynku waynu isxagaxagana laakiin shaqadii way habsaantaa imika waxaa inoo taalla sidii aynu dhismaa iyo shaqo iyo hawl u geli lahayn marka horta sidaa inaynu isku raacno in yarna waxaan odhan lahaa xisbiyada annaga xisbi ahaan waxay ila tahay inay naga diyaar xisbiyada mucaaradku had iyo goor iska danta iska jecel yihiin xisbul xaakimkana inuu iska haddii maaragtay waktigii lasoo dhaafiyey waxba imika inaynu cagta dhigno waxaa u daynay halkeeda qolo waliba inamadaa meesha ku tirtirinayana loo daayo wixii inoo soo baxana alxamdulilahi rabbilcaalamiin aynu idhaahno dowladda iyo commissionkuna sidaa inoogu guddoomiyaan aada iyo aad baa umahadsantihiin intaasi waxaanu kusoo gebagabinaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee martida noogu ahaayeen aqoon-yahan maxamed cali bile iyo doctor maxamed cismaan fadal oo ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo wadani aada iyo aad baa umahadsantihiin aadaan mudan ahlan